sida uu idin sheegay gudoomiye ku-xigeen labada gudoomiye ku-xigeen ay idin sheegeen sababta sida uu ku yimid waxa weeyaan guddiga joogtada ayaa qof iyagoo wada ayaa wadar ogol ah ayay ku soo ogolaadeen in maaragta arrintani la keeno horitabina la siiyo golaha shacabka mahadsanid walaale mahadsanid mudan mahadsanid raallahu waxaan filayaa inaan ka tarjumayo rabitaanka golahan iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan haddaan niraahno shacbiga Soomaaliyeed iyo golahanba mid diidan ma jirto gobolada Soomaaliyeed oo deegaan Soomaaliyeed walba inuu gaaro baraare iyo barwaaqo gaaro inuu marta maalgashi samaysto in horumar uu sameeyo dhaqaalihiisa uu kabcdo nabadiisa ay fiicnaato dhammaan shacbiga Soomaaliyeed iyo golaha shacabka waa arrin ay ka sameeyeen ay ogol yihiin hase yeeshee nuxurka ama baytul qasiidaha meesha yaalla wuxuu yahay in markii la galayo heshiisyada caalamiga ah in maaragta loo maro marinkii habboonaa oo lagu galayo heshiisyada caalamiga u dhignaa iyo dasaatiirta iyo shuruucda u taala dalkaas kaliya waxa weeyaan shirkadda tani way garab martay way baalmarsan tahay habka ay u gashay heshiisyadaasi wuxuu taabanayaa siyaadada qaranka wuxuu taabanayaa badqabka dhulka ama dalka Soomaaliyeed ayuu taabanayaa waa bareer shirkad inay ku hadasho ereyada qaarkood oo ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u gafto wax la qaadan kara ma annaka weerar kuma nihiin shacbiga Imaaraadka weerar kuma nihiin wax ka sheegayna dawladda Imaaraadka laakiin shirkadda tani habka ay u gashay wuu guracan yahay intaa weeyaan baytul qasiidaha